بأبيه محاو عهد سوكر يا عبد الله ونولان لها وحويان يهويدي أو إيلو وينان لهايين انتو كوينان هايين أي جوغي لهايين وحواي محمد وحوكو حرمي لها أو وحوكو تعلقي لها هويدي يا أبيه وحوكو لها هويدي باي سوكر سي هويدي أفكيس وحاكو بدل لها هويدي يا أبهي أبي أمي لكن إلهي سوى من دوناي محمد وحويان وخير خلق الله وجدك انه كله يكون براوح وكله عام ايو كله يا محمد وهو روائن انه ربي 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 انه بها محمد افكيس الهي ربي جاي افر الى وتنسع انه عرب كيس ذكر الهي وكفر ينادوا الدنيا واسيد قبل انه لو باهي محمد بانوع صلوات ربي وسلامه عليه قدوة حسنة وانا كنت بيانينا مرك قاروا كما ركتابوا لي هاي أدبني ربي فأحسن تأديبي إلهي بقى يتوبري إلهي لا يسوكري قول بنا يسو سمي وناجي أدبت يدي دقن كيدي سلوك يدي أخلاق يدي وهياجي إلهي سلاسو مرك إلهي دونايا وحكسو وري محمد صلوات ربي وسلامه عليه مكا مركو يمد قرية أووغي عبد المطلب والحسن أوهو وحكسو تقي مدينة كيمد عبد المطلب هذا رنتي ولا فكرة مركو أركي والله شاقي إن أي لمتي آمنة بنت وهب هو يدي هذا رنتي أجعل هذي وحوغا واجي ودلنا يي ووغا نوركي كسو بحايه هو يدي محمد نوحوكو أركي وحيابة عجيب مر الله ليه مركي قولي ويمد مؤمنا جعلين انه فارقه مرنا ريضو فارقوه وكتغو وحتاقي جري كعبض خاص كذو فريسن جري كوفي ووينتي مركا ابا لهب iyo aba jahal iyo maaragta waliid qolooyin kaana waxay iman jireen kacbada laakiin ilmahooda ma soo kaxaysin jiro meesha odayaalka ay fadhiyaan ilmaha waa laga fogeyn jiray laakiin Abdul Muttalib markuu soo baxay isagoo la sugaaya firaash qurux badan inta kacbada hoosteeda loo dhigay wuxuu soo gali jiray isagoo gacanta sida Muhammad wiilkan agoonka ah yaa markaasuu meeshiisii fariisin jiray dadkii kale xanaaqay markaas ay leeyihiin war anagu ilmo waa qabnaay ilmahana guryaha waa soo tagnay waa kuwa meelaha ku ciyaaraya Abdul Muttalib waa sidee ilmaha aad meesha ku haysid cunugan meesha oo ilmaha maaragta raaci hal ciyaare markaas wuxuu dhihi jiray inna ibni hada sayakunu lahu sha'an wiilkaygan caadi ma aha ya arrinkiisuna waa arrin anagoo dhan naga weyn ya arrin naga wada weyn weeye ya daaya faraha ka qaada markaas fiiri jireen bal waxa uu Abdul Muttalib ku sheegay ma ilma jacayl ba mise arrin kala jira markaas waxay arkayaan marka odayaal ku sheekaysanayaan Muhammad oo si tartiib ah intuu u fariistay sida oday 60 jira gacmaha isa saartay halka hadba qofka hadlaya afkiisa fiirinaya si edeb badan isagoo ciyaareen isagoo meelaha eegeen isagoo meelaha faraha taagtaageen si edeb badan sidii oday 60 jira u dhaqmaya waa wiilka 6 jirka ah أخلاقنا في عنونا برايا إيه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أننا وحويان فرتنجر كينا أما صدنجر كينا محوصة مايا إلهي بأن كل شيء ورقوا وضا تقانا قدقينا يا بميلها كمبيوتر رضا يميلها ماركتا كتكا بميلها تقع دلن يردينا ودلن يردي مسكح والهايد طاقة الهيد أود بدنيد إلى الربيعي وحصو صاران حقوق يدكوك فائديان آوي مسكحوا هنا استعمالان هل كاسا بلاي ستيشن كمبيوتر بالكوفر يا مركز امان تبدان عيارة لعيارة يا عسكري بلاي ولا استقالة يا هل كاسا كارتون سري المهي رائع اللي بجيك سدح جيرك مركز امان تبدان قايلين هيا قوقع هل كاسا مفضود ليكون انت صامر هل كاسا لبوقع يا مركز اركيسا يقول 6 ساعة 7 ساعة فدي هلكا وقت قودي من حداد كل وقتنا وحادث ليدا يقول كان هو مع عيالك كجر مسوا كوان وقرله وحوقي مرقي واوين او ميشان فنية هي عيالك وحي كل عيارايان اللي ياويسد حتى بني ادم ما وحي العيارايان وكارتون
hay maanta dhan baashasa marka waqtiga lagu dhuminaya. Muxamedna waa kana isagoo 6 sano jir odayaalkii cawqaashi buu la fadhiyaa markaasuu hadda war ka dhagaysanaya oo uu xigmada ka guraaya oo uu ma aragta hay waa wiilkana la leeyahay ku dayda qudwa xasana haydin noqdo siirada waxaasay marka ina baraysaa. Muxamed maanta awowgii ayuu la joogaa wuxuu la joogayaa awowgii muddo 2 sano ah marka uu gaaro 8 sano oo ay u dhamaato tii rabbi ayaa u imanaysa Cabdulmuttalib waa ilaahay baa oofsanaya halkaasuu ku geeriyoonaya. waa agoonnimo kale weeyaan waa qofkii saddexaad ee waalidkii ah oo halkaa ku geeriyooda. Muxamed waa imise jir waa 8 jir weeyaan markaa iyada ah wuxuu ku wareegay oo uu kala dardaarmay Cabdulmuttalib intaanu dhimanin wiilkiisii Abu Talib guriga Abu Talib rasuulka adeerkii ayuu ku wareegaya. Abu Talib waa Abu Talib ibn Cabdulmuttalib rasuulka adeerkii gurigaasuu ku wareegaya. waa intee guri rasuulka 8 sano jira imisa guri ayuu soo maray wiilkan agoonka ah bal dhibaatada ya bal fiiriyo uu maraayo rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wasallam waa noloshiisii bilowga weeyaan wuxuu soo maray 4 guri ayuu marayaa muddo 8 sano ah 4 guri gurigii hooyadii gurigii Xaliima baadi bani Sacad gurigii Cabdulmuttalib iyo gurigii Abu Talib waa 8 sano 4 guri ayuu soo marayaa oo guri walba marka noloshu macaato oo ay u macaanaato oo ay degto oo uu is yiraahdo maanta aad nolol fiican bilaabaysaa unbay ka kala jajabaysaa. waa kan qofkii uu jeclaa ee uu qabatimay ee uu la noolaa ayuu weynaaya markaasaa haddana guri kale ku wareeg sidoo kale guri kale ku wareeg gurigii afraad ayuu marayaa muddo 8 sano ah. keenee ayay ku dhacday arrinkaa ilaahay baa ku dhaariyey yay ku dhacday ya qof 8 sano 4 guri ya soo maray miyaa inuu jiro. Allahu akbar Allahu akbar Allahumma salli wa sallim alayhi kusalli rasuulkaaga ya yarantiisii noloshaas xun ayuu soo maray laakiin waxaan idin iri Allah rubbama manacaka liyu'tiyak inuu wax kaa mamnuuco ayaa laga yaabaa oo kaa reebo oo uu kaa hoojiyo waxaad waa jeceshahay si uu kuu siiyo wax isaga uu jecel yahay inuu kaa hoojiyo oo kaa xarimo oo uu kuu diido maxay wax adigu aad jeceshahay si uu kuu siiyo wax isaga uu jecel yahay. macnahaasaan ka fahmeynaa maxaa wacay 8 sano dabadeed sababta ilaahay uu uga qaaday dadkii uu jeclaa waa in uusan ku xirmin oo uusan aabe hooyo awoow inuusan dhihin oo uu yidhaahdo rabbii inuu ku xirmo ilaahay inuu tababaro maxaa wacay ilaahay sabab ayuu ka lahaa danbuu ka lahaa markii uu baadiye geynayey dabeecadda iyo dhaqanka iyo akhlaaqda baadiyaha way ka duwan tahay tan magaalada tababar bay ahayd. rasuulka waxaa lagu bilaabay in la tababaro maalintii uu dhashay ayaa ilaahay u bilaabay oo laga fogeeyey hooyadii hal mar nuujisay oo qura waa laga fogeeyey baadiyaha la geeyey si dhaqanka iyo caadada baadiyaha uu soo barto. Madiina la geeyey oo uu wax ku soo bartay. guriga Cabdulmuttalib waa ka duwanaa guryihii kale akhlaaqda iyo dhaqanka iyo dabeecadda taala si uu u barto. gurigii waxaa la keenay Abu Talib oo uu maanta joogaa si uu u barto dhaqanka iyo dabeecadda taala. maxaa wacay guriga waxaa jooga 10 ruux baa ku nool taqriiban waxaa ku nool dad cadowgiisa noqon doona iyo dad saaxiibadii noqon doona in uu la dhaqmo labadoodaba cadowga siduu ula dhaqmi lahaa ayaa lagu barayaa waa dadkii gaalada ahaa iyo Abu Talib ilmihiisii muslimi doono oo jeclaa xataa yaraantooda ayay sidaas ahaayeen oo ay kala duwanaayeen inuu asxaabtana barto dadka wanaagsan sida loo soo dhaweeyo akhlaaqdooda dhaqankooda cadowga sida loola dhaqmo inuu barto waa intee waa 8 jir 8 sano jira
maxaa rasuulka waa in fi'ooyinka kala duwan iyo afraadda kala duwan iyo dadka kala duwan dhaqankooda oo dhan in la bara, guryaha in la bara, maadaama uu hogaamiye noqon doono oo ilaahay dana caama uu ka leeyahay oo khalaa'iqda loo soo diri doono. tababarka fiir waktiga lagu bilaabay waa markii hooyadii ay dhashay. teeda kale maxaa loo dilay marka aabihii iyo hooyadii iyo maaragta awowgii maxaa loo dilay? adduunka inaanu kerinin, inuu ogaado qiimaha nolosha iyo geerida ay leedahay, adduunkan inaanu waaraynin si loo tuso rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh. yaa la dilay? dad qofkii ugu jeclaa aabihii ma uunan arag. yaa lagu xijiyey isagoo 6 jir ah, waa waktigii ugu baahida badnaa hooyadii inay u naxariisato oo ay laabta saarto, koolkooliso, ayaa meel weliba saxaraha lagu dilay. ma in la necab yahaad moodi? lama necbo salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi, laakiin in la tuso qiimaha nolosha adduunkan faaniha inuu yahay, inaanu nolol laabtiisa iyo urkiisa inaan adduunka aanu ku weynaanin salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi, inuu ogaado inaanu noloshan xaqiiq inay tahay oo ayn qiimi lahayn, in adduunkan laga tagaayo. dadkii ka horreeyey ee isaga dhalay ee asalkiisa ahaa waa kuwa way tageen. ay hooyadii waatan maanta uu kor taagan yahay oo uu aasayo, isagana berri waa la aasaya, wuu ka tagaayaa. maxaa loo baahan yahay marka maadaama adduunkan laga tagayo? ujeedadii adduunkan loo keenay inuu sameeyo ishtaqil birisaala, risaalada inaad markaas ka shaqaysid, dacwada inaad oogtid. adduunka nolosha ku taala waxaa weeyaan inaad ilaahay si fiican aad u caabudaan, dacwadiisa ka shaqaysaan, adduunkan khayrka aad ka baysaan, tabliiq aad u wada baxdaan giddigiin. meel walba oo qof muslima jooga aad tagtaan, meel walba ood qof ilaahay mushrik aad tagtaan oo aad xaqa u muujisaan oo aad siisaan oo aad waddada kusoo leexisaan, ilaahay u baridaan. iska ilaali adduunka inaanu ku kerinin. wama alxayaatu اdunya ilaa mataacu lguruur. noloshaada marka 4 guri weli ma ayan soo marin, adoo 8 sano jiro walaa adoo 50 sano jiro, hal guri hooyada aabaabaad kusoo agnoolayd. ay hadday marka midkeen uu ku dhici lahaa arrinkaa isaga ah, siduu noqon lahaa noloshiisa? aabbaha la dili lahaa adoo yar, awowgaa la dili lahaa, hooyadaa la dili lahaa, arxam